xaflad lagu taageerayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa waxa ay ka dhacday magaalada London ee wadanka Ingiriiska. xafladaasi oo ay soo agaasimeen jaaliyada Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyada ka soo jeeda degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. sidoo kale waxaa xafladaasi inta badan looga hadlay taageerada gudoomiyaha cusub iyo fatahaadaha soo noqnoqday ee uu sameeyo wabiga. dadkii halkaasi ka hadlay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan: taageerada caawa aan isugu nimid halkan oo aan ku taageerayno gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Dhexe loo magacaabay Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo ah nin aan nagu cusban oo maaragtay bulshada ay wada taqaano. waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha inaan taageersanahay, waxaan ka rabnaa gobolkaasi waa weyn yahay maadaama aan anagu hadda ka hadlayno degmada Jowhar waxaan u filayaa hadduu gudoomiyuhu si wanaagsan u dhaqaajiyo hawsheeda in gobolka intiisa kale ay furmi doonto. marka hore waxaan kula dardaarmayaa gudoomiyuhu inuu Ilaahay ka cabsado, dadkaasna uu u xaqsooro si cadli ah, wixii ay isku darsadeenna loo xafido. taas markaan uga baxo gudoomiyaha iyo dardaarankiisa, waxaan la hadlayaa jaaliyadaha meel kastoo joogaan, diasporadu ay ku dadaalaan in wadanka la dhisto, la maal gashto, guryaha la dhisto. waa ogtahay guryahan ka soo tagnay, guryihii in la dhiso magaalada la magaaleeyo oo magaalo culus laga dhigo. Cali Guudlaawe maalinta noo timid waa ku aragnay, yani waxa aad joor maalinta soo gashaa ka qabatay. inta dhimana garabkaaga Allah galo, annagana garabkaaga annaha hadduu Ilaahay jiraa. talabaad codsi oo aan ka codsanayo Cali Guudlaawe iyo dawladda inay taageerto Cali Guudlaawe, sababtoo ah hadda biyihii aan ugu soo furmay, wabigii wix lagu qodi lahayna ma haysano. marka dawladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa Jowhar qayb gobolka Shabeellaha Dhexe qaybtiisa in la siiyo. waxaad ogtihiin oon rabaa inaan xusiisiyo gudoomiyahana aan caawa rabaa inaan halkaan fartiin uga gaarsiiyo. dawladda tan oo hadda dhisan oo dawladda federaalka markii lagu aas-aasay Kenya waa gobolkii ugu horeeyay oo martigeliyo waay. dawladda Soomaaliya wuxuu ku leeyahay abaalgud, markaa tibaad iga tihiin dawladda abaalgud buu ku leeyahay. dawladdana waa uga fadhaa inuu abaalgud ay u samayso. hal shirib oo soo dirtay jirta Xaliimo Shafey oo ku nool Roma oo reer Jowhar ah ayaa waxay tiri shiribkaas halayga gaarsiiyo. Jowhar jimeeyano aha, Jowhar jimeeyano ah, jaliilkay ha kula jire, reer Jowhar way ku raacsanyiin, reedaadayna wada rorgan, reer Jowhar waa ku raacsanyiin, ee uroonow aad ku raagtide. saaxiibadii iga horeeyay reer Jowhar dhammaantood way soo dhaweeyeen gudoomiyaha wayna la dardaarmeen, laakiin anigu waxaan rabaa dhinac kale inaan maro. wadanka maanta waxaa ka jirto dabeeshaas oo la yiraahdo federalism. gobolka Shabeellaha Dhexena waa ka mid gobolada la rabo federaalka in loo sameeyo. gudoomiyaha waa dadaaliyay, dhalinyaradii, odayaashii, ganacsatadii iyo aqoon-yahankii intuu isu keenay shiriyay. TV-dan ka aragnay waxay yiraahdeen jaal gudoomiye adaa naga wakiila waxaan noo soo qaadanayna. gudoomiyaha waxaan rabaa in dardaaran u diray markii xil baa lagu saaray. xilka lagu saaray waxa u baahan tahay adiguna inaad hesho dad kula garab galo, waxa u baahan tahay inaad hesho dad kala taliyo, waxa u baahan tahay dad gobolkii u dhashay. meesha waxa yaala masiirkii gobolka Shabeellaha Dhexe oo la rabo in federaal laga dhigo oo lagu daro gobol kale. Yusuf Garabey, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.